بقرطوية قومية إيه لكر الله كدير بس إيه لكر الله كدير إيه العذر ولا هجبه إيه العذر ولا هجبه إيه العذر ولا هجبه إلهي ربي ورحمن إيه النمذين المسلم النمذين إلهي نجا مخاضو إيه النمذين المسلم النمذين إلهي نجا مخاضو إلهه إيه النمذين بركة إلهه إيه النمذين بركة ما أنت مالين أد فرحت وين إلهي ما أنت مالين أو علو إلمناي أو هدو أرك علنك بقرطوية قومية إيلو نحتني وشون سوداء ما أنت مالين أنجا قومية إيلو نوتهاي سمعة يو شرف يو ضدنيمو ما أنت مالين أنجا إنو قارت هاي واي ما أنت مالين كميت هاي مالما قومية إيلو dad ay dibid ay joogaan inay u soo bambaxaan calankooda qoomiyadda eyle waa qoom aad iyo aad u facaweyn taariikhda halkan waxaa ka hadlay odayaasheena dhaqanka iyo waxaa kaloo ka hadlay malaaqyada iyo waasyada lama soo koobi karo marka aniga wax baan ka taataawanayaa xoogo yar annaga waxaan degnaa dhammaan maamul goboleedyada maanta qabaa'iladan Soomaaliyeed barka bar waxaan ahay dadkii xoreeyay annaga xoreynay Soomaalidan barka bar iyadoo gumaysaha joogo gobolkan Banaadir oo maanta xamar la dhahay waxa la dhihi jiray xamarisaas kulay malaaqo ma qaldi malaaqo Allahu akbar ma qaldi xamarisaas ma qaldi xamarisaas ma qaldi gaawoshaas gurashaas gacan ku dhiig lasaas xamari saas ya gobolkan anaga iska leenahay xamara haye xamara haajo shabaab reebo walaalo loo alira Allahu akbar xamaridan waxaa liigu sheekeeyey abkoogay Allah raxmaan raxiimiin inay haajirtay maama oo qoomiyada ay ka mid ah maamadaas waxay fadhigeeda ahaa jaziira meeshay fadhis jirtay waxaa la dhihi jiray xamari marka gobolkan waxaa isdagaalay nimin la dhaho baadacadda wacdaan cafwan iyo waxaa kaloo isdagaalay mursada iyo reer mataan iyo eylaa degnaa jiray afartaas beelaa degnaa jirtay iyadoo oo mursadaha lagu soo duulay mursadaha maanta waxay dhahaan 3 iyo 9 sagaalka yaa waa mataqaaniin sagaalka eyle waaye okay sidoo kale waxaan kaloo anaga qabaa'ilada aan Soomaaliyeed aan xoreynay waxay ka mid yihiin gare gabarteeda lama guursan jirin aan dhihi jirin haddaan qalbi kulay malaaq uu joogaa waxaa la yidhi goosha libaax yacni gabartii gare subax walba waxay guyi jireen aan yidhi goosha marka wiil eylo ayaa wuxuu jeclaa gabar gare markuu jeclaa subaxii baa ku soo aaday gabadhii oo jeclaa in libaaxi loo geeyo dhaqanka ee gar ay qaw jireen waxa ka mid ah mar walba in loo geeyo libaaxa in loo geeyo gabar gar oo u jiray marka wiilkii eelaha wuxuu jeclaa gabar oo gale subaxii wuxuu dhahay lama gooracayo yiri gabadhaanaytii loo geenayo goosh loo geenayo yiri anaa gamaa gooracayo yiri ya anaa gamaa gooracayo yiri marka gara gabartooda lama guursan jirin ilaa iyo boqortooyada qoomiyad ee ka fasaxdo lama guursan jirin waxaa kaloo ka mid ah qabaa'ilada anaga aan xoreynay beelaha lixda shiidle waxay ka mid yihiin iyagoo talyaaniga oo dhagax u saaran dusha shiid meesha ka soo bilaabo dusha oo dhagax u saarnaaye kadibna nin eyle ka mid ahaa maanta laga bilaabo wuxuu yidhi dusha dhagax saari maysid falaarta oo soo qaatay ninkii talyaaniga ah falaarta wuxuu la dhacay dusha lagu dhuf talyaaniga marka shiilaha marka yoo ka mid ahaa shiilaha iyo boqor nasiib boodi kulligood waxay ka mid yihiin dadka anaga maanta aan xoreynay oo Soomaalinimada oo aan si sax ah u xoreynay okay jawhar asalkeeda maxaa la dhihi jiray jawhar waxaa la dhihi jiray joor eylo joor waxaa la dhihi jiray
joor eela leeyahay oo maanta golaha deegaanka xildhibaanada la qaybsanaya cali guurlaawo in oo baalmariyo boqortooyada qoomiyadda eele oo ka dhigo dad aan jirinbo runtii taasna laga yeeli maayo waa loo fadhiyaa xaqaasna cidka yeelaysa ma lahan in qoomiyaddan la baalmariyo oo faca weyn leh oo mug leh miisaaniyad leh madaxda dalka kulli way og yihiin joor asalkeeda in la dhihi jiray joor eele oo waagii maxamed siyaad bare oo markuu yimid la dhihi jiray adiyaa tahay eele adiyaa tahay eele adiyaa tahay eele adiyaa tahay eele guri walba la galaya xal dhihi adiyaa tahay eele adiyaa tahay eele gurigaan yaala eele beerta yaala eele eeliyaashan badan maxaa waa la dhahay meeshaan eele lama dhaaldaa joor soomaaliya la dhahaa ma fahanteen annaga marka boqortooyada waxaan soo lahaa jirin geedi shambo geedi baabo fayla aaro dibka baalugu soomaaliya cid boqortooyo ee ku faan karta ma jirto ilaa eyle maahine cid boqortooyo sheegan karta ma jirto taariikhda waa la ogyahay cid qarin karta ma lahan hadda boqortooynimada soomaaliya markii laga soo tago cid sheegan karta shantaas boqor ilaa iyo ninkaan la dhaho ninkaan la yidhaahdo addis ababa geedi ababa waay laba ilmo walaale ee waay addis ababa geedi ababa la jira xaggaa boqortooyada ka soo farcantay ilaa ethoobiyan jirjirna addis ababa la dhihi jiray intana waxaa ka tari jiray geedi ababa malaaqaye malaaqoo ma qalday kolley magacaasaan leeyin mansabkaasaan leeyin waan leenahay soomaaliya qabiil oo gumaysi diiday in gabadhooda hortooda lagu kufsado in xoolahooda la dhaco diiday eyle waay cid kale hala sheego ma jirto ninka eylaha farastiisaa loo dhaqan jiray ninka eylaha farastiisaa loo dhaqan jiray ninka eylaha kabihiisaa loo dhaqan jiray ninka eylaha dharkiisaa loo dhaqan jiray gabadha eylaha iyadan farasteeda iyadoo saarna lagu xambaari jiray nimankaas boqortooyadaan ahay ilaa hadda qof eyle markuu kula socdo dhinaciisa laguma dili kara geesnimadii kartinimadii dadnimadii waa leenahay halkaasaan kusoo gabagabay doonaa waxaan leeyahay boqortooyada qoomiyadda eyle kor allah ka dhigi beesha eyle kor allah ka dhigi eyle codogooda ha jabo eyle codogooda ha jabo eyle codogooda ha jabo ilaahay rabbi oo raxmaano eylenimadeena iyo muslimnimadeena ilaahay nagama qaado eylenimadeena muslimnimadeena ilaahay nagama qaado ilaahow eylenimadeena barakeey ilaahow eylenimadeena barakeey beesha eyle dal iyo dibid ay jiraan waxaan leenahay guul waxaan leenahay isku duubnaada waxaan leenahay isku duubnaada guul ayaa nirjaa soomaaliya oo dhanna waxaan nahay dadkii xoreeyay geesnimada iyo soomaalinimada dadkii baray diinta barnayaa tahay sax miyaa taas soo sax maa guul beesha eyle